garaadoo nabadda ku soo noqo garaadoo garaad jaamac caliyow garaad jaamac garaad cali ku soo noqo nabadda ku soo noqo dadka nabad u sheeg mid rasmi u sheeg waxa u dantaa u sheeg colaadi u dan maaha iyo baaq maanta colaadeede ka soo noqo ka istaghfiruleysan leeyahay ciidankaas isagoo oog fadhiya ayaad gumeyskeyseen haddana yagoori baad geyseen haddana ari cadeeyaad geyseen haddana la socod baad geyseen intaba ciidanku wadin daba socday idinka meel walba qabsanayo oo geynayay cidda laga qabsanayay reer Soomaaliland ma yahay waxay ahayn Puntland wuxuu igu dhaartay hudhalka xamdi ninkii hurday maanta la socod la qabsanayna ogeey anagu haddaanu garxasina waxaan diyaar u nahay afartan inaan madax dhaqameed ah oo idin dhex fadhiista oo xabasoojinta ilaaliya oo meeshii wax ka khaldamaan sheego idhaada halkaas wax ka khaldamay waxa lagu wadaalayaa waa nabadda iyo waddanka naga dhaxeeya nabadii aynu ku soo noqono madax dhaqameedka miidiyaha dagaalka cilaaminaya waxaan leenahay in madax yaalo dagaalka ay naga daay waxba inoo ma soo wadee waxaan ka diraynaa baaq nabadgeliyo iyo tacsi iyo talo intaas oo dhammaano halka wayeelkayga halka fadhinaanu ka diraynaa awalan marka hore waxaanu tacsi u diraynaa waxa laaliya wixii halka ku geeriyooday dhinacay doonaan baa ka dhinteene in ilaahay jannadii ka waraabiyo kuwa ku dhaawacmana ilaahay u boogadhayo taasi waa tacsidii ta kale baaqa nabadgelyo aanu diraynaa waxaan leenahay xabajoojintii aad ku dhawaaqdeen dawladda iyo garaadaduba waxaan leenahay hirgeliya waa in la hirgeliyaa awalan waa in ciidanka la kala qaadaa haddaan ciidanka la kala qaadin xabajoojin soconaysaa iyo mid suura gelaysaa midna ma jirto dawladda waxaan leenahay iyo garaadada labadiinuba ciidanka kala qaada gogosha nabaddana ha la isugu yimaado dad meel kala tegaya miyihin abtiyaal waxaynu nahay dad dhulka wada leh dad walaala ah dad isdhalay dad aan meel kala tegayn laakiin ciidanka sool jooga wuxuu la mid yahay ciidanka Hargeysa jooga wuxuu la mid yahay ciidanka Boorama jooga wuxuu la mid yahay Kacergaabo jooga waa ciidan Soomaaliland wuxuu dheer yahay waliba ciidamada kale amar dawladeed iyo taliyahooda amarkooda ku tagaan meesha joogaan kan idinka kaxeeyay ciidankaas isagoo oog fadhiya ayaad gumeyskeyseen haddana yagoori baad geyseen haddana ari cadeeyaad geyseen haddana la socod baad geyseen intaba ciidanku wadin daba socday idinka meel walba qabsanayo oo geynayay cidda laga qabsanayay reer Soomaaliland ma yahay waxay ahayn Puntland wuxuu igu dhaartay hudhalka xamdi ninkii hurday maanta la socod la qabsanayna ogeey iyadoo Puntland haysataan seexday waxa soo toosayday Soomaaliland haysato war ciidankii sidaa idinku aad u wadeen saaka ha baxo dee talaha ku baxo xusu xamaaho ciidanku meel kale uu deey karaaye talaha ku baxo ciidankaas ciidan gumaysi maaha ciidankaas ciidan gumaysi maaha garaadada waxaan leenahay ciidankaas ciidan gumaysi maaha waa ciidan Soomaaliland waa ciidanka idinku meesha geysateen waxa kale oo raacinaya anagu haddaanu garxasina waxaan diyaar u nahay afartan inaan madax dhaqameed ah oo idin dhex fadhiista oo xabasoojinta ilaaliya oo meeshii wax ka khaldamaan sheego idhaada halkaas wax ka khaldamay taasaan diyaar u nahay nabadeed halka waxa jooga waayeelkii garxasiis waxay waajib ku noqotay dee in maadaama ay dhaceen in la diro baaqa nabadeedna wuxuu ku wajahan yahay heer laascaanood ama gobolka sool waxa weeye wixii dhintay waxaanu leenahay taxsiib aanu leenahay sabriga iimaan allah inaga sii waynaga wada dhinteen waxa bukana allah u boogadhayo waa dadkeennii waynaga wada dhaawacmeen waynaga wada dhinteen dunidana fidmadu way dee weligeed bay soo dhacaysay laakiin fidmadda waa la qaboojiyaa alfidma ashadda min alqatl fidmadu way ka daran tahay wax dadka dhintaa fidmaddii hadday sii socoto dee dilkuna wuu imanayaa waxaanu leenahay hala joojiyo baaqii ay soo saareen labada darafba anuna haddaanu dhaqanka nahay Soomaaliland waanu ku raacsannahay waxaanu leenahay waayeelka garxajis waxaanu leenahay baaq aanu u diraynaa in la joojiyo xabadda waayo haddaan xabadda la joojin waxba ma hagaagayaan garaadada waxaanu leenahay abtiyaal joojiya qaas waa baaq nabadeed waxaanu leenahay wixii dhintay ee dagaalka ku dhintay
ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo waxaa dhaawacaana ilaahay caafimaad sareecana ha siiyo ayaanu leenahay la kala qaadaanu leenahay labada dhinacbana ha qaataan baanu leenahay xukuumadda iyada waxaan leeyahay xukuumadda waxaa laga doonayaa dul fara badan inay samayso dadkani waa shacabkeedii jamhuuriyadda somaliland baynu ku wada nool inaga dhaxaysa taasaynu wax ku wada nahay taasaynu nabad ku haysanay dowladihii hore waxaanu leenahay luuqadii ay kula hadli jireen sool xukuumaddu maanta ha kula hadasho oo mar kasta waxaa loo baahaya inaanay xabadi shaqayne inuu caqligu shaqeeyo lasii hurinaya ha la joojiyo oo ayaan dabka lagu sii shidin oon shidaal laga sii dhigin carruurta ay isdilaysa ee dhiigoodu daadanayo dhiigooda inta dambe ha lagu guntado waayo waxaynu u baahannahay wiil inoo dhashay wiil inaga dhinto uma baahnin colaad horeynu aragnay markaa taana waxaan leeyahay ha la joojiyo waxaan kaloo iyana u baaq u dirayaa dadka ku qorqora waxyaalahan la qorqoro ee social media la yidhaahdo waxyaalaha lagu qorqoro ama dabka kusii shidayana waxaan leeyahay ilaahay ka baqda idinkuna ilaahay u soo noqda ilaahay kaga xishooda waxaa kaloo aan mar kale iyada ku baaqayaa iyadoo marka horeba dhiigga muslimku xaaraan ahaa haddana bishani waa bishii xurmada lahayd bilihii xurmada ahaa ee xataa gaaladii mushrikiintii carbeed aanay dagaalami jirin noo saameynayo haddaanu gobolka sool nahay dee nimankaa isku degaan baanu nahay isku ood baanu nahay maanta colaadaasi annaga nama dhaqda nabadgelyo dhulbahante lala qaato unbaa dhaqda waxaanu leenahay xukuumadda sidaad xabad joojinta ugu dhawaaqday ka dhabeeya dhulbahantena waxaanu leenahay somalilan nabadun bay nagu wada deeqaysaa qalaadiintii iyo cuqaashii gadhexjis waayeelkii baanu nahay waxa weeye idinkama aan maqnin labada qoloba waxaanu leenahay baaqaa ay dawladdu ay soo jeedisay nabadda waxaanu leenahay waanu ku ayadaynaa dawladda oo ay hogaaminayaan weliba guddida isxilqaan ee ka shaqaysa arrimaha nabadda iyo horumarka reer somalilan iyo deegaankoodaba waxaanu halkan baaq dheer uga jeedinaynaa madax dhaqameedka nala midka ah ee reer laascaanood waxaanu leenahay walaalayaal waxaanu idinka codsanaynaa walaalayaal waxaanu idinka baryaynaa aanu idin weydiinaynaa aanu leenahay walaalayaal inaga joojiya xabadda iyo